Abakar Xaaji Axmed waa 82 jir ku nool magaalada Caynaba. Abakar waxa uu goobjoog ka ahaa dhacdo cajaa'ib ah oo ka dhacday meesha la yiraahdo Saddex Geed oo dhacda waqooyiga magaalada Caynaba. Taariikhdu markii ay ahayd 1958 waqtigaas oo aad ugu badnaayeen libaaxyadu. maalin walba waxa la waayi jiray qof ama neef. muddo kadib waxa la go'aansaday in la dilo oo la iska celiyo libaaxaas. waa tan shakadii oo dhammaystiran. beel baanu ahayn aagga la yidhaaha Caynabo ku dhowduwa siiba Saddex Geed iyo Mareedho yaa beeshu tiil libaax raxana ayaa joogay. libaaxa suu ama 10 neef u cuni jiray ama tulugu yaraan habeenkii waa ka tashanoo bahalkan dilaanu niri markuu muddo 3 bilood ah habeenkii walba intaa in leeg cunay. waxaanu isku urursanay ciidan 30 ah waa doonanay dilaanu niri markii aanu jidka maraynaa ragii baqabeelay 11 nin maaha intii kale waa baqasoo baqabeelay ku hadh. libaaxii markuu noo muuqdayna nin waliba halkii uu joogay baad moodaa inuu ka baxo waa gariiri. gariirkaa markii aanu istaagno saqaldhaydii magaala libaaxiina boodi. libaaxii markuu booday raxan la yahay yaa xabad ku riday. xabad ku riday aniga xabad markaan ku ridaa aarkiina geesuka labadii kalena geesu kaceen. waa kala dhex gallay aarkii baanu soo helay waa soo fadhiistay dhufays buu qaatay. markii uu dhufayskaa qaatay ee warkii dhufayskaa qaataan waryaadhaheen anigu taliyey libaax sheekaan ka hayaa. mar waxaan ka hayaa ninaan aqoon baahilbakarta marna waxaan ka hayaa 2 rogood lagama wada kiciyo libaax waa kii aan laga kicin jirin. haddaba ilaa xal rag ma cunine aan iskaga tagno. war waad baqaysaa baa la yidhi qoriga na siiyo iska orad adigu annagaa soo dilaynay. markaana waa taliyey waxaan sida ula dagaalanaa qorigeeda siin maaye. koob iyo tobanmaanno lixina barbar ha martaa la shanina barbar beerkuu dhulka hayaay xabaddaan feelaan wala wareegnaadhi waryaa meesha ku haynaya maadhi ila beelku waa nooli waxba qabo. sidii baanu yeellay ninkii yidhaana idiin fiican ee lahaa itusa ayaa 6dii kaxaysay ana 5tii bay raacay 4tii kale raaco 5 iyo 6 baanu. marka waxaad u kala qaybsanteen 2 guruub 5 iyo 6 baanu. hareeraanka marhal markii la hareeraanka una hareeraa ka maray oo aanan anagii 5taa fadhiisan baa 6dii fadhiisato fadhigaasuu soo booday baa libaaxi ku booday. 6dii idinka tagtay 5tiin haa 6dii waa soo carareen mid buu la hadhay. mid markuu la hadhaa 5tayadiina 3 raacday qoladii cararisi raacday. aniga nin kalaa ku soo noqonnay ninkii uu haysto ku joogo intuu markaa uu yidiyo nin buu la hadhay baa haystaa ku taagan inuu maayo ku taagan isagoo ninkii ku taagan baa in markaan ku soo baahnay labadoodii baa ninkii qorigeygii ku dhageeyo haddaa warankiisii tuura. qorigii baanu sii daayay warankii baan qaatay. xabad buu sidaa ugu fiiqayoo xabaddii baa jiidhaysay adin libaaxii markuu jiidhaysay buu soo boodi. annagii buu nagu soo booday labadayadii kiina faq buu yidhi kiina waa ka carar waa cararay. aniga libaaxii baa halkii isku mudanay. afk markaan uu isoo galaansi af ku dhufo hoos buu uga gabaday. labadaa margi dhexdooda warankii ka soo aan kaga dhufto halkaasuu ka soo buurmo. markaad labadiinnu isku soo hadheen waran baad haysatay kabacdi warankii baa siri ku tuur warankii wax isaga wax ma kuma tuurin sidaasaan ugu tumaatay. halkaasay sabadii ka jabtay. halkaas intuu ka soo dugay halkaa ka soo baxay halkaasuu qabtay halkaasoo maarag halkaa waa ka qabtay hoostii soo geliyey. cunaa qabanayso cunida gacantii waa ka soo gudbi weyday
halkaasuu ku dhegay markaana anoo sabada soo socda markaa waxa weeye nabaradan kugu yaalla isaga ilkiisii weeye isagoo sidaa u calashanay sidaa ayaan isla afka qabay markaasi cunaa qabay gacanta ka gudboodaan tooreydii la baxay tooreydii waan ku gowracay tooreydii yaan ku gowracay jirkuu dhacay ninkii kale geestayduu yidhi halkaasuu ku taxaquusa nimankii cararayna markay arkeen baarkiioo dee taqallusay bay haddii allaydno soo noqdeen dee sidaasaanu isu hallay libaaxa sheekadaa hore libaaxa laba hogood lagamada kiciyo iyo haddii allaydno waan hayey markii dhacdadii dhacday libaaxiyaa dishay bulshadii ama dadkii meesha ku xeernaa ama dadkii ku soo noqday magac ma kuu bixiyaan ama maxay sheekadii ka yidhahdeen libax ceeje ii bixiyeen libax ceeje yaa ii bixiyeen laakiin iminka xatilan waxaa kugu yaallaa ilkihiisii siduu 36 nabar ba igu yaal 36 nabar yaa igu yaal halkee ugu daran iminka lugta waanu aragnay iyo maxaa ugu daran lugtiina waa taasoo xagga waa ka oryaan xaggii xagga waa ka oryaan gacantuna waaba taadee maxaa ka eegaysaa soo ma aragtaan wataa ma fahant sidaasaanu isu helay bahalka halkaasaa bahalkii lagu qalo harigii laga soo bixiyey annana halkaana la keeno ingiriis dakhtarkii ingiriiska ayaa dee naloo keenay 3 cashaa iyo 3 habeen baa la waayey gaadhina lagu soo qaado dalka haddeen waxaa meel gaadhi la kala taagi la waayey 3 habeen iyo 3 maalmood yaanu meeshii nilo wax laga soo qaada la waayey inta cayroodaana la keenay maxay diin hadhay